wacan daawadayaal meelabood caalamka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka caalamka. barnaamijkana waxaa u diyaar anigoo Cali Xildoon. qodobada barnaamijkeena ugu waaweyn waxaa kamid ah hogaamiyaasha Mareykanka iyo Ruushka Putin iyo Biden ayaa heshiis urdhaca ka gaaray xiisadii u dhaxaysay labada dal. hogaamiyaasha gaashaanbuurta naatana waxa aysan weli isfaham ka gaarin cidda maamuli doonta garoonka Kabul kadib ka bixitaanka gaashaanbuurta naata ee wadanka Afghanistan. warbaahinta adduunka ayaa aad u hadal haysa gabadha xijaaban ee la taliya waa madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waxa uu ka digay xaaladda cunno yari ee ka jirta wadankaasi. wadamada khaliijka sida Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabtuna waxa ay dalbanayaan in lagu daro heshiiska nuclear-ka Iran ee u dhaxeeya quwadaha caalamka iyo dawladda Iran. shirkadaha wadanka Turkiguna waxa ay ku howleeyeen farsamada iyo soo saarka dayuurada jiilka shanaad si Turkigu uu uga maarmo dayuuradaha Mareykanka ee F-35 oo dhawaan liiskooda laga saaray. qodobadaas iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan kusoo dhawaada barnaamijka oo fidsan. waatahay daawadayaal kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka. hogaamiyaasha gaashaanbuurta naato ayaan weli isku afgaran cidda maamuli doonta garoonka Kabul International Airport ee wadanka Afghanistan kadib ka bixitaanka ciidamada naato ee wadanka Afghanistan. hogaamiyaasha gaashaanbuurta naato ayaa weli isku afgaran cidda maamuli doonta garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kabul kadib bixitaanka ciidamada xulafada uu hogaamiyo Mareykanka ee Afghanistan. xogayaha guud ee Jens Stoltenberg ayaa yiri isaga oo intaa ku daray in Turkigu uu door muhiim ah ka ciyaari doono ilaalinta garoonkaasi. hogaamiyaasha waxay isla garteen kulankii Isniintii dhacay in la joogteeyo maalgelinta garoonka diyaaradaha rayidka ee Kabul kadib markii howlahooda military ee wadanka ay dhamaadaan dabayaaqada sanadkan, isaga oo ka duulaya muhiimadda ay u leedahay joogitaanka diblomaasiyadeed iyo midda caalamiga ah iyo sidoo kale isku xirnaanta Afghanistan ee xulafada NATO. waxay bixin doontaa maalgelin ku meel gaar ah si loo hubiyo sii socoshada howlaha garoonka caalamiga ee Hamid Karzai International Airport ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay shirkii gaashaanbuurta NATO. imaatinka weyn ee shirweynaha ayaa ah isku xirka dhamaystirka ka bixitaanka degdega ah ee NATO ee Afghanistan kadib markii madaxweyne Joe Biden amar ku siiyay ciidamada Mareykanka in ay dalkooda dib ugu laabtaan 11 bisha Sebtembar. Turkiga ayaa soo jeediyay in isagu uu sugo amniga garoonka. soo bandhigida Ankara ee ah in ay sugto ammaanka garoonka diyaaradaha Kabul kadib markii ay baxaan ciidamada NATO ayaana ah mid muhiimad weyn u leh sii joogitaanka ama isballaarinta Turkiga. bayaanka kama dambaysta laguma xusin doorka Turkiga ee garoonka diyaaradaha, laakiin waxa uu carabka ku adkeeyay in isbahaysigu uu sii wadi doono bixinta lacagaha si xarunta loo furo. isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ayaa wadanka Qatar saldhig ka raadiyay si loogu tababaro ciidamada Afghanistan. saraakiisha amni ee ka amar qaata NATO ayaana u dhaqaaqday Qatar si ay u sugaan saldhig loo isticmaali karo in lagu tababaro ciidamada gaarka ah ee Afghanistan oo qayb ka ah ballanqaadka istiraatiijiyadeed kadib markii ciidamada shisheeye ay ka baxaan Afghanistan. 3 sargaal oo sare oo reer galbeed ah ayaana u sheegay wakaalada wararka ee Reuters. kadib 20 sano oo dagaal ah, xoogaga ka socda 36 dal ee ku lugta leh howlgalka taageerada go'aanka NATO ee Afghanistan ayaa lagu wadaa in ay ka baxaan wadanka iyaga oo la kaashanaya ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ugu dambeyn 11 bisha Sebtembar. sargaal sare oo ka tirsan laamaha ammaanka ee reer galbeedka oo ku sugan Kabul ayaa yiri waxaan wadnaa wada hadallo aan ugu talagalayno in aan saldhig uga dhigano wadanka Qatar si loo abuuro goob gaar ah oo lagu tababaro xubnaha sarsare ee ciidamada Afghanistan. sarkaalkan oo dalkiisu ka tirsan yahay isbahaysiga NATO ee Mareykanku hogaamiyo ee Afghanistan ka dagaalama ayaa codsaday in aan la magacaabin maadaama aan loo ogolaanin in uu la hadlo saxaafadda.
waxaan Qatar ka dalbanay ogolaansho, laakiin waa in mas'uuliyiinta Qatar ay go'aan ka gaaraan haddii ay ku qanacsan yihiin in gaashaanbuurta NATO ay u isticmaasho dhulkeeda mid lagu tababaro ciidamada Afghanistan, ayaa laga soo xigtay ilo amniga labaad oo fadhigoodu yahay Washington. ilo wareedyo saddexaad oo diblomaasi fadhigiisu yahay Kaabul ayaa sheegay in keenista xubnaha xoogagga gaarka ee Afghanistan la keenay Qatar qiyaastii 4 ilaa 6 toddobaad oo tababar adag ah ay ku qaadan doonaan halkaasi. dowladda Qatar iyo xafiiska isgaarsiinta ee NATO ayaan ka jawaabin su'aalaha la xiriira soo jeedinta ah in loo adeegsado gobolka Khaliijka xarun lagu tababaro ciidamada Afghanistan. dowladda Afghanistan sidoo kale kama aysan jawaabin codsi ku saabsan in ay faallo ka bixiso. qiyaastii 7,000 oo ciidamo aan Mareykan ahayn oo inta badan ka yimid wadamada NATO ee kala ah Australia, New Zealand iyo Georgia ayaa ka baxay Afghanistan, kuwaas oo hor u dhac ka bixitaanka gaashaanbuurta NATO ee Afghanistan. ka bixitaanka ugu dambeeya ee ciidamada shisheeye ayaa ku soo aadaya iyadoo uu sii kordhayo dagaalka u dhaxeeya dagaalyahanada Taliban iyo ciidamada amniga ee Afghanistan. cabsida laga qabo in Taliban ay Afghanistan la wareegto ay ka awood roonaato ciidamada amniga Afghanistan, kuwaas oo si weyn ugu tiirsanaan jiray gaashaanbuurta NATO marka la eego sirdoonka iyo saadka gaarka ah. taageerada hawada Mareykanka ayaa sare u kacday toddobaadyadii la soo dhaafay, maadaama ay kacdoonyahanada Taliban ay bilaabeen weeraro waaweyn oo ay ku qabsadeen degmooyin isla markaana ay la wareegeen saldhigyo muhiim ah. horaantii bishan xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa sheegay in isbahaysigu uu eegayo sida aan tababar dibadda aan ugu bixin karno ciidamada ammaanka Afghanistan, gaar ahaan ciidamada howlgallada gaarka ah. dalka Qatar oo dalka Khaliijka ugu qanisan dhanka tamarta ayaa hoy u ahayd xafiiska siyaasadda ee Taliban tan iyo sanadkii 2013. sanadihii la soo dhaafay tan iyo waa goobta kaliya ee laga ogyahay ee wakiilada idman ee kooxda kacdoonka adag ay wada hadallada la yeesheen saraakiisha Mareykanka. laba ilo wareed ayaa sheegay in Mareykanka, Ingiriiska iyo Turkiga ay ka mid ahaayeen wadamada gaashaanbuurta NATO oo diyaar u ah in ay u diraan ciidamo tababar Afghanistan ee wadanka Qatar. afhayeen u hadlay Taliban ayaa sheegay in kooxdu aysan ka warqabin qorshaha NATO ay ku tababarayso ciidamada Afghanistan ee wadanka Qatar. marka laga hadlayo askarta Afghanistan ee tababarka military ku qaata dalka dibadiisa, haddii nabad la helo marka waxaa laga yaabaa in kuwa sida wanaagsan u tababarano loo qoro in ay u adeegaan Afghanistan, laakiin haddii ay yimaadaan oo ay nala dagaalamaan annaga iyo qarankooda, markaa dabcan ma yeeli doono, mana ku kalsoonaan karno, ayaa u yiri Zabihullah Mujahid oo afhayeen u ah Taliban. dhanka kale ciidamada ammaanka Afghanistan ayaa lagala wareegay 6 degmo 24 saac ee la soo dhaafay. saraakiisha deegaanka oo sii hadlay ayaa sheegay in aan si dhaqso ah loo cadeyn waxa ku dhacay qaar ka mid ah askartii dib uga gurtay deegaankaasi. 6 degmo ee lala wareegay ka sakow degmada Khan Abad oo ka tirsan Kunduz waxaa si kooban u qabtay xoogagga Isniintii, laakiin ciidamada amniga ayaa dib ula wareegay. Afghanistan waxay leedahay 34 gobol iyo ku dhawaad 400 oo degmo. xarumaha degmooyinka waxay u adeegaan in ay yihiin unugyo maamul oo heer dugsi sare ah. ilo ka tirsan dowladda ayaa sheegay in daadguraynta degmooyinka aan saldhigyada lahayn saldhigyada iyo isbaarooyinka looga dan leeyahay in laga ilaaliyo magaalooyin iyo degmooyin muhiim ah in ay burburaan. si kastaba walaac ayaa isa soo taraya oo ku saabsan awoodda ciidamada ammaanka kadib markii gebi ahaanba ay ka baxaan ciidamada caalamiga ee NATO. toddobaadkii hore taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka waxa ay sheegeen in ay dhameystireen geedi socodka ka bixitaankooda 50%, kuwaas oo 20 sano ee la soo dhaafay ku sugnaa Afghanistan iyagoo aan ka gaarin wax horumar ah. waxaana muuqata in Mareykanku Afghanistan ku fashilmay sidii dagaalkii Vietnam. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un oo warbaahinta la hadlay ayaa ka digay xaaladda cunno yari ee wadankiisa ka jirta. Kim Jong-un ayaa sheegay in dhaqaalaha dalkiisu uu sanadkan horumar sameeyay, hase yeeshee waxa uu ku baaqay tallaabooyin wax looga qabanayo xaaladda cunnada ee wadankaasi oo ah mid daran, taasi oo ka dhalatay cudurka coronavirus iyo duufaano ku dhuftay sanadkii tagay wadanka Kuuriyada Waqooyi. Kim Jong-un ayaa hogaamiyay kulan ay yeesheen xisbiga xukuma Kuuriyada Waqooyi
ee shaqaalaha kaasi oo dib u eegis loogu sameynayay siyaasadaha waaweyn ee dalkaasi laguna dejinayay tallaabooyin loogu xallinayo xasaradaha dhaqaale ee dalkaasi sida ay baahisay wakaaladda wararka ee waddanka Kuuriyada Waqooyi ee KCNA. Kim ayaa sheegay in si guud dhaqaalaha Kuuriyada Waqooyi uu markii hore sanadkan horumar sameeyay ayada oo wax soo saarka warshadaha uu sare u kacay 25% marka loo eego sanadkii laga soo gudbay sida ay baahisay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi. Si kastaba ha ahaatee weecasho dhab ah oo ku timid dadaaladii xisbiga ee lagu fulinayay qorshooyinkii la dejiyay sababo la xiriira caqabado dhowr ah ayaa uu yiri isaga oo si gaar ah u xusay hay-adaha cuntada waddanka Kuuriyada Waqooyi. xaaladda cunnada dadka waxay ka sii daraysaa ayada oo qaybtu beeraha ay ku guul daraysatay in ay buuxiso qorshaha soo saarka horumarka sababo la xiriira duufaanadii sanadkii hore ayaa uu yiri madaxweyne Kim. xisbiga shaqaalaha ayaa wacad ku maray in uu dhammaan dadaalada isugu geyn doono beeraha wax soo saarka si kor loogu qaado sida ay baahisay wakaaladda wararka Kuuriya. Kim ayaa ku baaqay tallaabooyin lagu yareynayo waxyeelada musiibooyinka dabiiciga ah iyada oo la eegayo casharadii laga bartay sanadkii tagay kuwaas oo muhiim u ah in lagu guuleysto hadafyada laga leeyahay. Ra'iisul Wasaaraha waddanka Suudaan Cabdalla Xamduug ayaa ka digay qalalaase iyo dagaalo sokeeye oo ay abaabulayaan maamulkii talada laga tuuray ee Umar Xasan al-Bashir. Cabdalla Xamduug ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu kula hadlayay dadka dalkiisa taas oo uu ka jeediyay telefishinka maalmo kadib markii rag dhalinyaro ah oo watay budad iyo ulo ay xireen wadooyinka caasimadda Khartoum kadib markii ay dawladdu joojisay lacagihii ay ku kabi jirtay shidaalka. dawladda Xamduug ayaa ku howlgasha heshiis awood qaybsi ah kaas oo u dhaxeeyay militariga iyo rayidka kadib kacdoonkii dadweyne ee ciidanka xukunka uga tuureen hogaamiyihii waayo aragga ahaa ee Umar al-Bashir bishii Abriil ee sanadkii 2019. xilliga kala guurka ayaa ujeedadiisu tahay in lagu gaaro doorasho isagoo ku eg dhamaadka sanadka 2023. xaaladda nabadgelyada ee ka sii daraysa waxay inta badan ku xiran tahay kala qaybsanaanta ka dhex jirta qaybaha kacdoonka taas oo fursad ay ka faa'iideystaan siinaysa cadowgeena iyo haraadigii taliskii hore ayaa uu yiri Xamduug. waxa uu sheegay inta dib u habeyn lagu sameynayo amniga Suudaan ay taagnaan doonaan halista amni ee gudaha iyo dibadda uga imaanaysa. kala qaybsanaantu waxay noo horseedi kartaa xaalad fawda oo ay hormuud ka yihiin kooxaha burcadda ah iyo kuwa dambiilayaasha ah taasoo horseedi karta fiditaanka isku dhaca dhammaan kooxaha rayidka ah taas oo horseedi karta dagaal sokeeye ayaa uu yiri Ra'iisul Wasaare Cabdalla Xamduug oo telefishinka kala hadlayay shacabka Suudaan. inkasta oo Suudaan ay ku guuleysatay ammaan caalami ah ee ku aadan dib u habeynta dhaqaale tan iyo markii uu dhacay xukunkii al-Bashir isla markaana ay horumar ka sameysay dhanka deyn cafinta walow inta badan reer Suudaan ee ay soo food saartay cunno yari ay la daalaadhacayeen nolol maalmeedkooda iyada oo sicirka uu sare u kacay sanadkii la soo dhaafay. Watahay daawadayaal wali waxaa daawanaysaan barnaamijka dhacdooyinka caalamka oo aanu marayna qaybihii dhexe. waxaa la soo saaray liiska wadamada sida sharci darrada uga kalluumeysta xeebaha Soomaaliya. dalka ugu darani waa Thailand oo 7% ka kalluumeysta xeebaha Soomaaliya taasoo ka dhigan ku dhawaad 3 meelood hal meel tirada guud ee kalluumeysiga halka ka socda. walow aan la soo bandhigin maraakiibta Shiinaha oo intaa ka badan isagu heshiis aan la fahmin oo aan la aqoonin cidda qaadata kharashkaas ka soo baxa kula jira wasaaradda kalluumeysiga dawladda Soomaaliya. dalalka Thailand ku soo xiga waa muslimiin ay u badan yihiin tusaale waxaa ku xiga Jamhuuriyadda Iran oo xatooyada kalluunka Soomaaliya ka qayb qaadatay 23%, kadibna Yemen oo xatooyada caalamiga ah ka ah 17%, taasoo ay dheer tahay in ay Yemen sharci darro ku haysato qayb ballaaran oo ka tirsan biyaha Soomaaliya maadaama ay suqadara oo jasiirad ah u sameysatay EEZ taasoo ka horjeeda xeerarka badaha ee qaramada midoobay. waxaana ku xiga dawladaha Imaaraadka Carabta iyo Masar oo iyagu 8% ka kalluumeysta xeebaha Soomaaliya
halka dalalka kale ee caalamkuna ay boqolkiiba 7 ka kalluumaystaan xeebaha Soomaaliya. Arrintan kalluumaysiga sharci darrada ah ee sii socda ayaa meesha ka saaraysa war ay horey u faafisay dowladda Soomaaliya oo ahaa in ay rakibatay qalab lagu ogaanayo doonyaha iyo maraakiibta ka jilaabtay biyaha Soomaaliya, balse marka laga reebo mar qura kadib wax war kama soo bixin qalabkaasi iyo waxa uu qabto. siyaasadda hanka yar ee Soomaaliya oo inta badan diiradda lagu saaro ciddii ku fariisan lahayd kursiga ay ilaaliyaan Afrikaantu ee lagu biilo Soomaaliya ayaan u muuqanin mid keenaysa qorshe lagu ilaalinayo xeebaha Soomaaliya. waxaa kale oo xusid mudan in ay xeebaha Soomaaliya joogaan dalal badan oo sheega inay ilaaliyaan hubka iyo burcad badeeda, balse badankood waxay ilaaliyaan maraakiibta halkaa ka kalluumaysanaya, balse ma jiro siyaasad uga degsan dowladda Soomaaliya oo ku aadan arrintan. xeebaha Soomaaliya ayaa waxa ay la kulmayeen muddooyinkii ugu dambeeyay kalluumaysi sharci darro ah iyo sunta haraadiga ee nuclear-ka oo dowladaha waaweyn ee caalamka ay ku daadiyaan. waxaana jira mashruuc loogu yeero la dagaalanka burcad badeeda, balse taas beddelkeed waxa ay ka kalluumaystaan dowladahaasi kalluunka si sharci darro ah waxayna ay ku daadiyaan sunta haraadiga. Soomaaliduna ma lahan siyaasad ku aadan oo looga hortagayo arrintaasi. hogaamiyaasha Ruushka iyo Mareykanka Putin iyo Biden ayaa xiisadda labada dal oo muddooyinkii ugu dambeysay taagneed waxa ay ka gaareen heshiis hordhac kulan ay ku yeesheen magaalada Geneva ee Switzerland. Joseph Biden iyo Vladimir Putin waxay doonayeen in ay qaboojiyaan xiisadda ka dhaxaysa xiriirka xumaaday ee Mareykanka iyo Ruushka kulankoodii ugu horreeyay ee ka dhacay magaalada Geneva, laakiin walaaca ugu weyn ee Mareykanka ayaa ahaa weerarada cybereniska ee Ruushka kaga imaanaya Mareykanka. diblomaasiyiin sarsare ayaa bogaadiyay bayaankii wadajirka ah ee Putin iyo Biden ee ahaa in dagaal nuclear ah aan lagu kala guuleysan karin. dukumiintiga kaliya ee la qaatay kadib wadahadaladii 4 saacadood socday, tallaabo loo qaaday soo celinta caqliga saliimka ee amniga caalamiga ayaana lagu sheegay. falanqeeyaasha siyaasaddu waxay yiraahdeen sharaxaadda Biden ee ku aadan Ruushka inuu yahay awood weyn iyo qeexitaan cad oo ku saabsan in uu leeyahay khad cas oo lama taabtaan ah. Washington waxay u badan tahay tallaabooyinka ugu horeeya ee muhiimka u ah yareynta xiisadda labada dhinac. haddana labada wafdi waxay weli wajahayeen kala duwanaansho qoto dheer oo ku qotonto xuquuqda aadanaha iyo arrimo kale. waan ku faraxsanahay in aan awood u yeelanay in aan warqad dul dhigno ujeedada in aan ka bilowno wadahadallada wax ku ool ah oo firfircoon, ayaa lagu yiri war ka soo baxay. markii aan si cad u hadalno waxaan la kulanay shaki sii kordhaya sanadihii la soo dhaafay oo ku saabsan u diyaar ahaanta Washington ee u hoggaamsamida caqiida ahaan iyo fikir ahaan mowqifka kaliya ee suurtagalka ah iyo kan dhawaaqa marka laga hadlayo masiirka adduunka. intaasi kadib, tani waa sida kaliya ee awoodaha mas'uulka ka ah nuclear-ka ee ku hubaysan hubka nuclear-ka ugu badan ee ay ugu dhaqmi karaan adduunka casriga ah. inkasta oo natiijada guud ee fiican ay jirto, afhayeenka Putin Dmitry Peskov ayaa sidaas sheegay. waxa uu yiri Dmitry Peskov, weli ma jirto sabab oo Mareykanka looga saaro liiska Ruushka ee wadamada aan saaxiibka lahayn ama cadowga Ruushka. shirkii ugu horreeyay ee Putin iyo Biden waa la tixgelin karaa haddii aan lagu guuleysan kadib tallaabo loo qaado diidmada iyo ka saarista culays xad dhaaf ah oo xiriirka labada dal dhaawacaya. mucaaradka Ruushka ayaa si togan uga falceliyay ballanqaadkii Biden ee ahaa in uu sii wado walaaca laga qabo xuquuqda aadanaha ee Ruushka, taasoo uu shir jaraa'id ku sheegay kadib kulankii labada madaxweyne. markii ugu horreysay sanado badan waxaan aragnay madaxweyne Mareykan ah oo qadiyadda xuquuqda aadanaha hordhigaya kana dhigaya wadahadallada labada dhinac. madaxweynaha Mareykanka oo soo gabagabay safarkiisa diblomaasiyadeed ee murugada weerarka cybereniska Ruushku u geysto Mareykanka ku qotontay uu ku mareeyay qaaradda Yurub, waxa uu sheegay in isaga iyo Putin ay soo baareen ka wada shaqaynta nusdarsin aag ay ku wada jireen xoogagii hore ee quwadaha waaweyn ay dano iska lahaayeen oo ay ku jiraan Iran iyo Syria, waxaana ay isku afgarteen in xiisadda la qaboojiyo labada safiirna shaqada ay dib ugu soo laabtaan. warbaahinta caalamka ayaa aad u hadalhaysa gabadha xijaaban ee la taliya oo madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. gabadhaas ayaana lagu sheegay in Erdogan uu ku muujinayo
xijaabka islaamka iyo qadiyadda Falastiin oo ay asal ahaan hooyadeed ka soo jeedo. fariimaha siyaasiga ah mararka qaar sawir kaliya ayaa lagu gudbiyaa, marar badanna kulan, marar badanna hadal, marna dhigaal. intaasi oo dhamina waxay u muujisaa mabda iyo fariimo siyaasadeed dadka siyaasadda yaqaana. dadka mabaadi'da lehina ama waa gaaraan ama waa u dhintaan. kuwa siyaasadda ku qaraabtana waxay ku hadaaqaan mabaadi'du waa hore laga tegay. madaxweyne Erdogan waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha mowqif walba fariin ugu gudbiya ee wax iska dhacay aysan ka ahayn. gabadha xijaaban ee la fadhida kulanka Biden waa Fatima Abu Shanab, Falastiin ka soo jeeda. jaamacadaha George Mason iyo George Getown ayay wax ku baratay, haddana shahaadada ugu sareysa ee PhD ayay wadaa. xafiiska madaxweynaha ayay u qaabilsan tahay xiriirka caalamiga. marar badan ayay la taliye iyo turjumaan lagu kalsoon yahay ula socotaa madaxweynaha. hooyadeed waa Profesorad Dr. Marwa Kafaji, waa gabadhii 1999kii baarlamaanka Turkiga xijaabka dartii looga ceyriyay. jinsiyadda Turkigana laga qaaday kadibna Mareykanka tagtay oo wax ku baratay ilaa ay macalimad iyo cilmi baare ka noqoto jaamacadda George Washington iyo Harvard. haddana waa danjiraha dowladda Turkiga u fadhiya dalka Malaysia. madaxweyne Erdogan maxay tahay fariimaha waaweyn ee uu madaxda adduunka ugu gudbinayo gabar iyo hooyadeed aqoon-yahano ah oo xijaaban? jawaabtu waa iska caddahay oo waa xijaabka islaamka iyo qadiyadda Falastiin, taas oo madaxweyne Erdogan uu caalamka fariin ugu dirayo. dalalka khaliijka ayaa dalbaday in lagu daro heshiiska nuclear-ka Iran ee u dhaxeeya quwadaha caalamka iyo dowladda Iran oo wareegiisii 6aad uu ka socdo magaalada Geneva. dalalka khaliijka ayaa sheegay in ay halis noqon doonto in wadahadalada quwadaha caalamiga ay kula jiraan Iran ee barnaamijka nuclear-ka laga reebo barnaamijka gantaalaha iyo dhaqdhaqaaqa xasilooni darrada ah ee Tehran, waxayna mar kale ku celiyeen in ay wadahadaladaasi qayb ka noqdaan. dalalka ugu awooda badan caalamka iyo Iran ayaa waxaa Sabtidii Vienna ugu bilowday wareegii 6aad ee wadahadalada la doonayo in dib loogu soo nooleeyo heshiiskii nuclear-ka ee 2015 laga gaaray barnaamijka nuclear-ka Iran, kaasi oo ay ka hor yimaadeen Sacuudi Carabiya iyo xulafada, isla markaana Mareykanku uu ka baxay sanadkii 2018. xukuumadda Tehran ayaa diiday isku day kasta oo arrimo kale loogu darayo heshiiska, kaasi oo ay ku ogolaatay in ay xakamayso barnaamijkeeda nuclear-ka iyada oo ku bedelanaysa in laga qaado cunaqabataynta saaran. madaxweynaha Mareykanka Joseph Biden ayaana doonaya in uu dib u soo celiyo heshiiska oo uu ka baxay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. wasiirada arrimaha dibadda dalalka khaliijka ayaa ku buuriyay quwadaha caalamka in ay xaqiijiyaan heshiis wata xanibaado xoogan iyo waqti fog, ayna xaqiijiyaan tallaabooyin lagu dhisayo is-aaminaad si looga hortago in gobolka uu ka dhaco tartan dhinaca hubka ah. bayaan ay soo saareen kadib kulan ay ku yeesheen Riyadh waxay ku sheegeen in dalalka khaliijka ay tahay in laga qaybgeliyo wada xaajoodyada lala leeyahay Tehran, ayna diyaar u yihiin in ay ka wada shaqeeyaan in si dhab ah wax ku ool ah ay ula macaamilaan diiwaanka nuclear-ka Iran, iyada oo lagu saleynayo dhowrista iyo madax bannaanida iyo deris wanaagga. bayaankooda ayay ku xuseen halista ka imaan karta in heshiiska nuclear-ka laga reebo cawaaqibka barnaamijka gantaalaha Iran iyo taageerada Tehran ay siiso kooxaha ka dhisan gobolka, waxayna ku buuriyeen Tehran in ay si dhab ah u gasho wada xaajoodka si looga fogaado in xaaladdu sii xumaato. Sacuudi Carabiya iyo Iran oo xiriirka kala goostay sanadkii 2016 ayaa bishii Abriil waxay wada hadallo toos ah ka bilaabeen Ciraaq si loo xakameeyo xiisadda gobolka. wadahadalka ay Ciraaq ku yeesheen Sacuudi Carabiya iyo Iran ayaana ahaa kii ugu horreeyay oo ay yeeshaan tan iyo sanadkii 2016. waatay daawadayaal gabagabadii barnaamijka dhacdooyinka caalamka ayaan isla soo gaarnay iminkana wadanka Turkiga. shirkadaha wadanka Turkiga ayaa ku howlan sameynta iyo soo saaridda dayuurad ka dheeraysa guuxeeda ee jiilka 5 si Turkigu uu uga maarmo dayuuradaha Mareykanka ee F-35, taas oo liistigooda dhawaan laga saaray. mashruucan oo ah mid loogu sugidda badan yahay dalkaasi ayaa waxaa lagu doonayaa in lagu sameeyo dayuurad kuwa guuxooda ka dheereeya oo ay Soomaalidu u taqaano miiga, walow magacaasi la yiraahdo kuwa Ruushku uu sameeyo.
Temel Kodli, maareeyaha guud ee Turkish Aerospace Industry oo shirkadda qandaraaska ugu weyn ka haysata mashruucan, ayaa wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu u sheegay in farsamada dayuuraddu si wanaagsan u socoto, iyada oo dayuuradda sambalka ah ee ugu horeysa la soo bandhigi doono 18 bisha Maarso ee sanadka 2023, xilligaas oo ku beegan 100 sano guurada Turkigu ugu dabaaldegi doono dib u soo celintii Cusmaaniyiinta. Waxa uu sheegay in walow ay shirkadani u xil saaran tahay farsamada dayuuradda, ay misana shirkado kale ee sameeya agabka ciidamada Turkiga ay khibradooda iyo farsamooyin ku biirinayaan sidii loo soo saari lahaa dayuuraddan oo noqon karta horumar loo sameeyay oo 100% ah. Shirkadda Aselsan waxay naga caawisaa dhanka wixii danab iyo barnaamijyada dhisidda kombiyuutarka, sidoo kale dareemayaal lagu dhajinayo meelo badan oo dayuuradda ka tirsan, sida kuwa sheegaya gantaalaha soo socda, cilada jirta iyo wixii la mid ayaa waxaa ka wada shaqeynaya Aselsan iyo Havelsan. Shirkadda dayuuradaha cilmiga iyo tiknoolajiyadda Turkiga iyo rugta daraasadda xogaha tiknoolajiyadda casriga ayaa wada dhisme kombiyuutar dhexe ee dayuuradda. Shirkado kale oo Turkish ayaa sameynaya hanaanka danab gaarsiinta dayuuradda, iyada oo ay cududooda isugu geynayaan dhammaan shirkadda Turkiga ee agabka ciidamada. Waxaa dhismaha dayuuraddan ka qayb qaadanaya ilaa 1,000 injineer, iyada oo Kodli xusay in shirkadda Tay oo qura ay guud ahaan leedahay 4,000 oo injineer, iyadoo dayuuraddan ay ka kooban tahay 20,000 oo qaybood. Turkiga ayaa Mareykanku ka joojiyay barnaamijka dayuuradaha ee F-35 oo shirkadiisu weli wax ka samayso. Dayuuraddan TFX oo jiilka shanaad ayaana lahaan doonto muuqaalo u dhigma kuwa dayuuradaha ay dhisto Lockheed Martin ee F-35 si ay u dhaxasho kuwa sii gaboobaya ee F-16 oo ay Turkigu doonayaan in ay ka guuraan sanadka 2030. Turkiga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku tallaabsaday tiknoolajiyad ciidan oo buuxda, waxaana hadda militarigiisu ay ku qalabaysan yihiin 70% hubka maxalliga ee gudaha Turkiga lagu farsameeyo. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii dhacdooyinka caalamka. Barnaamijkan waxaa idin la socodsiin anigoo Cali Xildoon. Tan intaan barnaamijkan mid lamid dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.